tartanka kubadda cagta ee 13 jirada ayaa ka furmay maamulka magaalada Jigjiga. tartankana uu soo diyaariyay xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxaa ku tartamaya kooxo ka socda xaafadaha kala duwan ee magaalada Jigjiga. tartankan ayaa waxaa furay madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka magaalada Jigjiga Mudane Ibrahim Jaamac waxaana uu nooga warbixiyay ujeedada tartankani. bismillaahir rahmaanir rahiim tartankan aan qabanay waxa weeye saaka dhalinyarada da'da soo koreysay ee magaalada Jigjiga ee 13 jirka waxa weeyaan maadaama waxaan muhiimadda koobaad aan u qabanayna waxa weeyaan maalmihii hore waxaan lahaa maamulka magaalada Jigjiga waa maxay tartan ma qabanaysaan dhalinyaradu wayna weydiinayeen laakiin rubac saddexaad buu noogu jiray haddana rubacii saddexaad maadaama la galay waxaanu ka bilownay da'da soo koreysay 13 jirka 13 jirka waa markii koobaad heer maamul magaalo ilaa heer deegaan waa markii koobaad aan ku faani karno maamulka magaalada Jigjiga inuu qabto ilaa heer deegaan in aan laga qabin tartanka 13 jirka weligii lagama qabin laakiin anaga ka maamul magaalo ahaan Jigjiga waanu ku faanaa dhalinyarada da'da soo koreysay inaan u qabano tartan midda kale waxa weeyaan tartankan maadaama macallimiintii projectiga aanu qaar la soo wareegnay wali caadi lamaanu soo wada wareegin laakiin qaar baanu la soo wareegnay waxa weeyaan macallimiintii projectiga waa dhalinyarada hayeen weeyaan 13 jirka ahaa iyadana macallimiintii intaanu la shirnay ka bacda aan oranay wixii ay u baahan yihiin intaan eegnay ayaa waxay yiraahdeen tartan baan u baahnaa waanan u sii qorsheynay rubac saddexaad in macallimiintan dhalinyarada da'da soo koraysa ee tartanka loo qabto saakana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu guuleeyo saakana waan u qabanay tartankii saaka waan u qabanay waanan u furnay tartankii marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada fariintaan u furayna waxa weeyaan waa inay ay ka baxaan mukhadaraadka balwadaha xun waa inay ka baxaan ay goobaha isboortiga yimaadaan si ay u ciyaaraan isboortiga anaguna aan dadaal badan ugu jirno xafiiska dhalinyarada ciyaaraha maamulka magaalada Jigjiga oo waliba on nidaamka on basic ka soo bilowno oo 13 jirka hadda ka soo bilowno oo la wada arkayo iyagana fariinta waxaan u dirayaa inay ka faa'iideystaan ciyaaraha soo socda insha Allah si ay uga soo qayb galaan dhalinyaradu ay mukhadaraadka meelaha iska ilaaliyaan xashada iska ilaaliyaan jeena groupka iska ilaaliyaan waxa weeyaan iyo wixii dib ku keenayo dhan baa iska ilaaliyaan sidoo waxa dareenkoodana la wadaagay qaar ka mid ah tababarayaasha iyo daayirtii 13 jirada ahayd ee loo qabtay tartankani oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay tahay markii ugu horeysay oo loo qabto tartan dhalin daadoodan iyo waa tartankii ugu horeeyay maanta aan ka qayb galno kooxda anoo ka socda dhanka Roman Hotel Roman ka socda weji marka tartaradan kolkii hore lama qaban jirin maanta ayaana loo qabtay maadaama fasax iskuulkii imtixaanadii ay dhamaadeen marka aad iyo aad shucuubteeda lama soo koobi karo wallahi laakiinse guul baan rajaynaynaa anagu inaan koobka agteeda u noqdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cumar Ciise Maxamed waxaan ka socdaa kooxda Napoli ugu horeyntii waxaan salaamayaa dadka meeshaas oo dhan isugu yimid waana koobkii ugu horeeyana loo qabto xafiiska isboortigu aad iyo aad buu mahadsan yahay kooxda Napoli ka socda magacaygu saddexan waa Xudayfa Khadar Axmed waxaan deganahay maamulka magaalada Jigjiga xagan waxaa laga bilaabay koobkii ciyaareen baalkii dhalinyarada 13 jirka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay xafiisku noo bilaabaan koobkaas waa markii ugu horeysay loo qabto anigu waxaan ku jiraa kooxda Geetaawi oo ah projecti waxaan isleeyahay kooxda aad u jirtid baa koobka qaad insha Allah inaan guul kooyno sidoo kale tartanka waxaan ka rajaynaynaa maaragtay wax weeyaan guul inaan maaragtay ka gaarno insha Allah taala aad bayna xafiisku u maasanyiin waqtigan oo maaragtay waxa weeyaan fasaxyadii maaragtay iskuulka lagu jiro aad iyo aad maaragtay ugu maasanyiin maaragtay wax weeyaan tartan noocan noo qabtaan hadda ka horna maaragtay wax weeyaan anana loo qaban aad iyo aad ugu maasanyiin kulli maaragtay kooxdan waxaan u rajaynayaa maaragtay guul ciyaartiina wali way socotaa ma dhamaan insha Allah taala guul insha Allah taala guul ayaan guul baan maaragtay u rajaynayaa kooxda tartankan ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee laga qabto guud ahaan deegaanka Soomaalida kaasoo uu qabtay xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamulka magaalada Jigjiga Nimcaan Axmed Cabeeye Honkeyl TV xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha